kulanti waxaan wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan barnaamijka Xuuraansi oo xilligan oo kale aad nooga barateen inaan idinka soo baahino shaashada telefishinka TTN ayaan rabnaa inaan idinkula wadaagno qodobo xasaasi ah guud ahaan haddii caalamka oo dhan aad naga daawanayso waxaan sidoo kale idinka codsanaynaa inaad baraheena bulshadana aad nagu soo biirtaan magaalada muqdisho caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa hadallo kala duwan ka jeediyay siyaasiyiin kala duwan oo isugu jira mucaaradka iyo muxaafidka iyagoo dhinaca kale uu ku eedeynayo qaran dumisnimo iyo inuu dalkii kala geynayo madaxweynaha jamhuuriyadda mudan xasan sheekh maxamuud ayaa ku tilmaamay mucaaradka ka soo horjeeda oo ay ka mid ka yihiin madaxweynayaashii isaga ku horeeyay in ay la mid yihiin kooxaha burcadbadeed iyo sidoo kale kooxaha dalka kala geynaya oo uu sheegay inay yihiin kuwo khariban oo dalkan iyo dadkan wax naxariis ah iyo mansab midna aan doonayn inuu dalkani gaaro madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in mucaaradku ay doonayaan inay dalka dumiyaan isla markaasina ayba ka shidaal qaataan wadamo shisheeye oo uu sheegay in Soomaaliya inay israacdo oo ay lugaheeda ku istaagto inaysan habeen ku riyoon ama aysan raali ka noqonaynin dhankooda mucaaradku waxay ku tilmaameen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa inay tahay xukuumaddii ugu liidatay ee abid dalka soo martay isla markaasina dalkii oo dhan xaraashtay iyagoo sheegay in xaraashka hantida danta guud uu ka gudbay gudaha oo uu dibadda u gudbay sidoo kalena dadkii danyarta ah ee dowladda loo doortay in ay xaaladahooda la socoto oo duruufahooda ay tixgeliso ay duleedka muqdisho ku tabaaraysan yihiin iyadoo laga kiciyay dhulkii danta guud wax badiilana aan loo samaynin haddaba waa eedeymo waaweyn oo dhinacyadu ay isku jeedinayaan intaasi oo dhan waxay dhacayaan iyada oo uu jiro qabanqaabada kulan la doonayo inuu dhexmaro madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale mucaaradka kuwaasi oo la doonayo in lagu dhammeeyo kala aragti duwanaanshaha soo kala dhex gashay villa Soomaaliya iyo mucaaradka kulankan waxaa dabada ka riixaya Mareykanka Ingiriiska qaramada midoobay midowga Yurub iyo sidoo kale jamhuuriyadda Turkiga oo la ogeysiyay maadaama xilligan ay tahay saaxiibka ugu sokeeya ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa dhinacyada dhammaan lagu canaantay inaysan doonin inay horumar ka sameeyaan wada hadallada isla markaasina ay xarijiid ciyaarayaan taasi oo ugu dambeystii keentay in beesha caalamku ay soo go'aamiso nooca doorasho ee la doonayo dalka in laga qabto iyadoona guddiga doorashada beesha caalamku ay u qoondeysay hal gud doorasho oo federaal iyo isteedida ka qabto taasoo dhabar jab ku noqonaysa mucaaradka una hiirinaysa qorshihii madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhanka kale caawa magaalada muqdisho caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kulan casho sharaf ayaa waxaa golaha shacabka ugu sameynaya gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyadoona xalay loo diray fariin wada jira dhammaan xubnaha golaha shacabka kulankaasi cashada oo ka dhacaya villa Hargeysa ayaa la doonayaa in ay isku xal wareystaan gudoomiyaha cusub ee dhawaan la doortay shalayna xilka la wareegay Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo xubnihiisa golaha shacabka ee markiisii hore uu ka tirsanaa isagoo xildhibaana kulankan ayaa la doonayaa in lagu kala dhex saaro madmadowga qaar ka mid ah xubnaha iyo sidoo kale gudoomiyaha ku kala dhex jira iyadoona gudoomiyuhu sheegay inuu noqonayo nabadoon ee uusan noqonin gudoomiye oo kaliya dhanka kale haddii muqdisho intaasi aan kaga gudubno Puntland wali waxa taagan culaysyadii xoogana ee dhanka amniga iyadoona xilligan xaalad laga soo warinayo deegaanka Kodmo oo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland kuwaasoo odayaasha iyo waxgaradka deegaanka iyo sidoo kale golaha aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta Puntland si wada jira war saxaafadeed ay soo saareen ugu baaqeen Siciid Cabdullaahi Dan iyo nidaamkiisa inuu ka baaqsado inuu dhiig cusub gacmaha la galo iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan federaalka oo dabada la galay beelihii ay ka soo kala jeedeen kadib markii ay ka cabsadeen duulaan uga yimaada ciidamada maamulka Puntland deegaankan ciidamada ku sugan ayay odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale siyaasiyiinta deegaankaasi iyo golaha aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta Puntland waxay sheegeen in ay yihiin kuwa aan deegaanka waxba u dhibayn isla markaasina looga baahan yahay Siciid Cabdullaahi Dan iyo nidaamkiisa inay si maan fayoole ay ku wajahaan lagana baaqsado in halkaasi dhiig uu ku daato ay sheegeen haddii halkaasi ay xabadi ka dhacdo mas'uuliyadda in uu Siciid Cabdullaahi Dani qaadayo weli waxaa socota qorshihii sifaynta ay ugu magac dartay Puntland ee ugu hortagaysay federaalka iyo saameyntiisa uu ku leeyahay Puntland kuwaasi oo saldhigyo badan oo ciidamada federaalka ay ku sugnaayeen oo ku yaalay gudaha Puntland cagta ay marisay Puntland isla markaasina la sheegay in lagu biiriyay ciidamada maamulka Puntland inta kalena tababar loo furayo balse Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu sheegay inuu soo afjarayo guud ahaanba saameynta federaalka uu ku leeyahay maamulka Puntland ee uu madaxweynaha ka yahay dhanka kalena waxa uu sheegay in uu yahay
musharax madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee teeramka soo socda taasi oo siyaasiyiinta ka aragtida duwan siciidana ay leeyihiin madaxweynaha waxaa laga doonayaa inuu iswaafajiyo inuu federaalkii la dagaalamo iyo inuu yidhaahdo federaal ayaan musharax u ahay. dhanka kale magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa lasoo warinayaa in ay ka socoto howlo ballaarin dhanka dekedda iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha iyadoo la leeyahay maraykanka xilligan waxa uu u soo jilba joogsaday sidii uu u kala qoqobi lahaa gobolada kala duwan ee dalka soomaaliya maadaama markii hore uu maraykanku ka shaqayn jiray ama uu lahaa midnimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waa muqadas. arrintan ayaa shaki gelisay markii dhowaan wafdi sare oo ka tirsan maraykanka oo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee qaaradda afrika ee ciidamada africom ee maraykanka iyo siyaasiyiin maraykan ay booqasho ku tageen qaar ka mid ah maamul goboleedyada oo ay ka midka yihiin puntland, jubbaland iyo somalilan, taasi oo keentay in ay dhinacyadu sheegaan in ay heshiis la gaareen iyadoona arrimahaasi dowladda federaalk soomaaliya ay ka falceliso oo ay sheegtay in aysan wada shaqayn toosa dhex mari karin maamul goboleedyada iyo maraykanka, balse waxay warar hoose sheegayaan in maraykanka uu xilligan doonayo in uu sii ballaariyo saameyntiisa uu ku leeyahay maamulada puntland iyo jubbaland iyo sidoo kale somalilan, taasi oo walaac xoogan ay ka muujisay dowladda federaalk soomaaliya. dhanka kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa si weyn u cambaaraysay aqoonsi la sheegay in dowladda colombia ay siisay maamulka yuhuudda in buuraleyda golan heights ee jamhuuriyadda suuriya ay lahayd islamarkaasina maraykanku uu horey u sheegay in buurahaasi iyo dhulka ku teedsanba israa'iil ay leedahay. buurahan iyo dhul badan oo suuriya ay leedahay ayaa waxaa xoog ku qabsaday yuhuudda iyadoona in muddaha ay gacanta ku hayeen xilliganna wadamada u aqoonsaday in buurahaasi iyo dhul ku teedsanba ay israa'iil leedahay ay colombia ku biirtay. jamhuuriyadda soomaaliyana waxa ay sheegtay inaysan waxba ka jirin oo dhulkaasi uu yahay dhul ay leedahay suuriya islamarkaasina la doonayo in wadahadal lagu dhammeeyo arrinta dhul ay suuriya leedahayna aysan sax ku noqonaynin in sidaasi ay israa'iil ku qaadato. waxaa jamhuuriyadda soomaaliya ay sheegtay wixii ka dambeeyey 1946 ama wixii ku horreeyey dhulkii ay lahayd suuriya in ilaa iyo haddana ay leedahay oo qabsashada yuhuudda aysan waxba ka jirin. haddii aan ku soo laabano gudaha waddanka soomaaliya duleedka magaalada kismaayo iyo qaar ka mid ah deegaanada ku hareersan ayaa la sheegayaa in ay howlgallo xoogan ka socdaan kuwaasi oo ay ciidamada daraawiishta ee jubbaland iyo ciidamada federaalka ee kumaandooska danab halkaasi ay ka wadaan. howlgalladan ayaa la sheegayaa in lagula dagaalamayo wax loogu yeeray kooxa ka tirsan shabaab oo deegaanadaasi isku soo aruursanaya. arrinta waxay daba socotaa kadib markii ay federaalku guuldaraysteen inay sii xajistaan joogitaankoodii gobolka gadow taliska ugu weynaa ee halkaasi cabdirashiid xasan cabdinuur cabdirashiid janan uu dowladda wakiilka ugu ah ay sheegeen inay isku dhiibeen dhanka maamulka jubbaland, taasi oo tusaale ka bixinaysa saameynta federaalku uu ku leeyahay jubbaland iyo puntland. guud ahaan waxaa la doonayaa in puntland iyo jubbaland saameynta federaalku uu ku leeyahay laga saaro, taasi oo su-aal gelinaysa goboladaasi iyo waxa ay u taagan yihiin. haddii aan ku soo laabano isla magaalada muqdisho waxaa rajo xumi laga muujinayaa wadahadallo la doonaya in lagu kala dabqaado mucaaradka iyo villa soomaaliya kuwaasi oo toddobaadkan qorshuhu ah inay muqdisho ka dhacaan balse aysan ilaa iyo hadda wax ay fifaalaha muuqanin, iyadoona arrimahaasi la leeyahay waxa ay u sii cagajiidayaan xaaladda kala guurka ee dalku uu galayo iyo duruufaha qallafsan ee xilligan jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay marayso. dowladda federaalk soomaaliyana waxay sheegtay inay heer gabagaba ah marayaan ciidamo kala duwan oo ay ugu tala gashay inay la wareegaan guud ahaanba amniga, kuwaasi oo tababarkooda dal iyo dibad uu gacan weyn ka geysanaya turkiga oo xilligana saaxiibka koobaad ee dowladda federaalk ee soomaaliya. dhanka kale israa'iil iyo yuhuudda ayaa waxaa lasoo warinayaa inay xilligan sii xoojinayaan wadahadaladooda maadaama ay dhowaan heshiisa galeen islamarkaasina midba mid kale uu dal u aqoonsaday. tii ayaa la doonaya in lasii horumariyo iyadoona warar kale ay sheegayaan sababta israa'iil ama somalilan israa'iil ay u hoos gashay yuhuudda ee ay u miceen bidda inay tahay inay ka cabsi qabto in turkigu uu duulaan kusoo qaado kadibna uu ku daro jamhuuriyadda soomaaliya inteeda kale oo iyadoo ay sheegtay in ay 35 sano ka hor ka go'day balse weli aan si rasmi ah loo aqoonsanin. gabagabadii bariga dhexe waxaa laga dayrinayaa gacanka Hormuz oo
boqortooyada UK ay sheegayso in sii xirnaanshaheeda uu halis ku yahay dhaqaalaha guud ee dunida. waxay boqortooyada UK ay sheegtay in marinkaasi Hormuz haddii aan si degdeg ah loo furin in uu guud ahaan saameyn ku yeelan doono caalamka, iyadoo sheegtaba inuu saameyn weyn ku yeeshay gudaha waddanka Ingiriiska. waxay boqortooyada UK ugu baaqday Mareykanka iyo sidoo kale xulafadiisa oo ay ka mid ka tahay iyo Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan in laga shaqeeyo sidii si degdeg ah gacanka Hormuz iyo marinada kale ee xiran loo furi lahaa si loo badbaadiyo dhaqaalaha dunida. guud ahaan waxaa saameyn ku yeeshay dhaqaalihii caalamka iyo amnigii hawada iyo badaha duulaankii 3 bilood ka hor Mareykanka iyo Israel ay ku qaadeen Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan, kaasi oo guul darro kusoo gabagaboobay. guud ahaan taasi aan kusoo afmeerina barnaamijkeena Xuuraansi oo xilligan oo kale aad nooga barateen inaan idinka soo baahino halkan waa shaashada telefishinka TTN waa bahdi Xuuraansi oo idin leh ammaan Allah.